بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa bogga warbaahinta ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar fura gambaleelka si aad ula socoto dhacdooyinka iyo warbixinaha aanu halkani ku baahino. waad mahadsan tahay. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo goordhow shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayso diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka socota gobolada Sool iyo Sanaag. wasiirka ayaa sheegay in deegaamada gobolka Sanaag ay ka socoto diiwaangelintu si nabadgelyo u socoto sidoo kale gobolka Sool ay diiwaangelintu si habsamiyo oo nabadgelyo u socoto. deegaamada ay ka socoto ee bariga Sanaag waxa kamid ah diiwaangelintu degmada Laasqoray, degmada Baral iyo degmada Dhaxar, halka gobolka Sool ay ka socoto magaalada Laascaanood, degmada Xudul iyo waliba degmada Taleex ee caasimadda gobolka Xaysimo. wasiirka ayaa sheegay in guud ahaanba deegaamadaasi ay diiwaangelintu uga socoto si nabadgelyo ah wax dhibaato aan ka dhicin. waxaan u mahad celiyay guddiga doorashooyinka qaranka, hay'adaha nabadgelyada ee sugaya amniga goobaha diiwaangelinta iyo waliba mas'uuliyiinta xukuumadda ee kormeeraya. waxa kale oo wasiirku bogaadiyay markaana uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay maalgelinayso dhaqaalaha ku baxaya diiwaangelintani jirina cid ka caawisay dowladda Soomaaliland. wanaagsan bay u socotaa, si nabadgelyo leh bay u socotaa. degmo doorashooyinka maxaan ku dhahdayay ay ka socoto ee gobolka Sanaag waxa ka mid ah degmada Ceerigaabo oo magaalada madaxda gobolka Sanaag oo gobol doorasho ah, degmada Laasqoray, degmada Badhan, degmada Dhaxar. gobolka Sool waxay ka socotaa degmada Laascaanood oo magaalada madaxda gobolka Sool oo gobol doorashada ah bay ka socotaa, degmada Xudun bay ka socotaa, degmada Taleex ayay ka socotaa. waa degmo doorashooyinka. degmooyinkaasi aad iyo si fiican ayay hawshaasi u socotaa. degmooyin badan oo doorashadu ama se diiwaangelintu markii horeba ay gaadhay iyo degmooyin aanay qaarkood gaadhininba way jiraan, laakiin si wanaagsan bay uga socotaa, si nabadgelyo leh bay uga socotaa. waxaa ka howlgalaya mas-uuliyiin golaha wasiirada ka tirsan, waxaa ka howlgalaya mas-uuliyiintii maamulka gobolada, guddiyada nabadgelyada ee maamulka gobolada iyo degmooyinka ka howlgalaya. waxaa ka howlgalaya ciidamada amniga ee Soomaaliland oo ciidanka booliiska iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galaya. waxaan aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasiirada ka qayb galaya howlahaas gobolada gobol oo culays iyo abaabul iyo xilkasnimo iyo hawsha hirgelinteedii aad iska saaray. aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka ayaguna hawsha ka howlgalaya oo si fiican oo xilkasnimo leh oo mas'uuliyadeed uga qayb qaatay. waxaan aad uga mahad celinayaa taliyayaasha ciidamada qaranka iyo booliiska oo maxaan ku dhahday hawsha ka qayb qaatay, iyo ciidamadooda talisyadooda qaybaha ee gobolada iyo jiidaha hore ee ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka kaalinta ay ka qayb qaateen iyo booliiskuna aad baan uga mahadnaqayaa. waxaan aad uga mahadnaqayaa waayeelka iyo waxgaradka madax dhaqameedyada ka qayb qaadanaya ee deegaamada iyo waayeelkoodana waan uga mahadnaqayaa iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliland. arrintan diiwaangelinta sida lala socdo, diiwaangelintan waxay ku socotaa, waxay ku fulaysaa isku tashiga dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland waana cidina ka taageerin. arrintaas waxaan uga mahadnaqayaa suuragelinteeda wasiirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican aynu hawsha u galay iyo dhaqaalaheeda sidoo madaxweynuhu uga midho dhaliyay inay suuragal noqoto inay Soomaaliland maanta cagaheeda isku taagi karto oo ay iyadu hadday diiwaangelinta kharashkeeda ay iyadu maxaan ku dhahday dhabarka u xambaarato. madaxweynaha iyo wasaaradda kala howlgalayna aad baan uga mahadnaqaynaa iyo golaha wasiirada oo arrinta go'aankaas lagu fuliyay oo lagu gaaray. saxaafadda Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii qayb weyn ka qaadatay oo aan maantana kula talinaya inay qayb weyn ka sii qaataan
oo ay siiyaan coverage wanaagsan in ay asaan u daboolaan si ay dadka ugu dhiirigeliyaan diiwaangelinta socota ee waliba labada gobol ka socotana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa mahadsantii